mayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu u sii dhagaye eriyadaasina waxaa ku hadaaqayay shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo saaka isku soo bax ballaadhan oo madaxweynaha Soomaaliland ay ku taageerayaan isku soo baxay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorame agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare ee Soomaaliland wasiirka hore wasaaradda qorsheynta qaranka ururka qarankeena shaqaalaha dawladda madax dhaqameedka suudiyaasha kala duwan ee laamaha dawladda soo bax ballaadhan ka dhigay magaalada khayriyada ee magaalada Boorame soo taageero ugu muujinayeen badii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi talaadadii aanu ka soo gudubnay ka jeediyay labada aqal gole wakiilada iyo guurtida ku aadanayd inay marnaba ay Soomaaliland raali ka noqoneen inuu dalka yimaado madaxweynaha Soomaaliya isku soo baxan maanta ka dhacay khayriyada magaalada Boorame ayaa waxa halkaasi hadallo taageero ka jeediyay mas'uuliyiintii madax dhaqameedkii haweenkii ka soo qayb galay waxna yiraahdeen sida waxay cadeynaysaa inay inaga go'an tahay inaynu la shaqeyno dawladdeena iyo dadkeena iyo maayirkeena soo maaha maamulka gobolka degmada la shaqeeyo soo maaha waxaynu muujinaynaa inaynu Soomaaliland iyo madaxweynaheenu go'aanka ka qaatay wada hadalka inaynu taageerno soo maaha madaxweynaheenu garab taaganahay soo maaha arrinta maanta halka aynu taaganahay haddii aynu reer Soomaaliland waxa weeye inaynu muujino qarannimadeena Boorame waa aasaaska Soomaaliland dadweynaha reer Boorame ee isa soo abaabulay inay isu taagaan ama taageeraan madaxweynahooda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey labada gole u jeediyey hadalladii dhammaantood duuduub bay ku qaateen duuduub bay ku taageereen waxa noo farxad lah in aanu aragno dadweynihii ku noolaa degmada Boorame iyo guud ahaan gobolka Awdal sida quruxda badan leh iyadoo waliba maalin cadceed ay tahay u soo baxeen ay waliba u doonayeen inay taageeraan go'aankii iyo mowqifkii uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadana imaatinka farmaajo maanta waxaanu halkan ka taageeraynaa haddaannu nahay shacbi weynaha gobolka Awdal iyo dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad sanadeedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey labada gole baarlamaan oo aanu si buuxda u taageersannahay haddaannu nahay shacbi weynaha gobolka Awdal taageerada ay u hayaan go'aanka ka soo baxay xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha iyo qadiyadda Soomaaliland inay muujiyaan dadweynaha reer Boorame ama gobolka Awdal waxay mar kasta yihiin dad lafdhabar u ah oo meeshii ay ku abuurantay ee lagu aasaasay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii ugu weynaa lagu qabtay madaxdu waqtiga ay talinaysay maaha sida adduunyada dimuqraadiga madaxweyne la doortay shacabkiisa go'aan kale marka waanu dhaafnay waqtigii dadka la magacaabay ay talinayeen waxaan ka horjeednaa cid kasta oo doonaysa inay dib inoo celiso inaad qaradayso waan ka horjeednaa sidaa darteed waxaan ku salaamayaa halkan oon aad ugu taageeraynaa in khudbaddii taariikhda ahayd ee uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u taageersannahay haddaannu nahay duqaydii iyo salaadiintii iyo uqaashii gobollada galbeedka Soomaaliland waxaannu halkan taageero buuxda oo mugle aan ku taageerannaa khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyey labada gole waxaannu taageersannahay qodobadii ku jiray oo weliba gaar ahaan qodobkii furidda xisbiyada iyo ururada iyo go'aankii ahaa in aan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo aanu booqasho ku iman karin magaalada Hargeysa aad iyo aad baan u taageersannahay inaynu taageerno madaxweynaheenna shirkii muxuu ahaa uu ku tagay Addis Ababa ee Afrika iyo khudbaddii uu ka hoos jeediyey labada gole waannu taageersannahay waxa weeye dawladdan Soomaaliland waa tii Boorama lagu dhisay waa taan inagu dhisnay waa taan halka lagaga keenay sadan bay
jirtaa way raamaysatay wax maanta looga baqo oo cadow ah leenahay ka cabsoonaynaa ma jiro Soomaaliya ugu noqonnaa halka waxaynu isugu nimidnay kolley khudbaddii madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka jeediyey Hargeysa caasimadda waddanka taageerayna siinaan isugu nimidnay halkan waxaan u sheegayaa maanta dawladda Soomaaliland muqaddis tahay oo ina u baahnayn qaqalshaad kale intiraafkana ilaahay baa haya gacanta eebbay ku jirtaa way israacdo Afrika ayay ugu sarraysaa taageeridda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxaynu ku taageeraynaa madaxweynaha go'aankii caddaa uu ka qaatay imaatinkii madaxweynaha Soomaaliya اللهم صل على سيدنا مولانا محمد إلهي با مهدله حمرتا عبريسا عدكي جيرك دميسي dadka maanta cisiga jooga mar ha loo celiyo miyayna ceeb xunahayn waa ceeb weey maxamed xasan ismaaciil beere wararka telefishinka Ariel magaalada Boorama